السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كورسada waa multimedia casharkeen iyo 12aad ee qaybta Photoshopka. Waxaan ka hadlaynaa maanta sida loo sameeyo board ama billboard. Sida u taqaaniin. Marka hore waxaan sameeynaa waxaan leenahay control N. Waxaan leenahay control N. Kadibna magaca projectka aan ku qorayo halkan board. Okay. Widthga waxaan ka dhigayaa 100 cm. Headka waxaan ka dhigayaa 50 cm. Resolutionka sidiisa iska ahaado waxba ha ka bedelin okay sidoo kale white background contentska white iska ahaado waa iska normal okay kadib waxaan leenahay okay kadib waxaan sameeynaa marka hore waxaan soo qaadaynaa waxaan taginaa halkan rectangle tool aan taginaa kadibna waxaan ka dooranaynaa rectangle tool deetana waxaan taginaa halkan waxaan ka dhigaynaa colorka blue okay ama waxaan ka dhigaynaa ka soo qaad this one colorkan okay kadib waxaan leenahay okay kadib halkaan aan imanaynaa backgroundka dushiisa halkaan aan ku jiidaynaa marka drag and drop aan ku sameeynaa waa ka okay marka mujada okay waxaan ku darayaa marka okay kadib waxaan leeyahay check tan saaraya marka waxaan kaloo sameynayaa hadda uu ii dooran yahay waxaan sameynayaa waxaan tagayaa halkan edit waxaan rabaa inaan qalqaloociyo waxaan tagayaa transform path kadib waxaan sii tagayaa warp okay kadib waxaan sameynayaa pointigaas mujeda pointiga aan marka waxaan ku sameynayaa waan jiidayaa sorry hoosan u celinayaa aan ka wada hoosan u sii celinaya halkan oo kale sidoo kale kan pointigaas waan jiidayaa waxaan geynayaa halkan oo kale kadib waxaan sameynayaa waxaan leeyahay okay jegtaasaan saarayaa kadib waxaan sameynayaa marka waxaan ku darayaa border right click aan leeyahay waxaan tagayaa blending options waxaan leeyahay marka stroke aan ku darayaa stroke double click aan siinaya halka colorka stroke marka waxaan ka dhigayaa ka soo qaad this one blue oo xoogaa yani noocaasa okay kadib size-ka waxaan sameynayaa marka waxaan ku darayaa wax yar okay waan ku daray kadib waxaan leeyahay okay iminka waxaan soo gelinayaa sidoo kale marka hore waxaan dooranayaa backgroundka halkaan aan imaanaya waxaan dooranayaa this one ellipse tool ellipse markaan doorto halkaan aan ku jiidayaa marka halkaan aan ku jiidayaa hadda wuxuu maray hoos uu jiraa waxaan taabanayaa v markaan taabto marka inta imaanaya shape-ka koraan keenaya marka waan jiidayaa waa kana hadda wuxuu soo fuulay qaybta kore okay sidaa markay tahay marka waxaan rabaa kan inaan sawir soo dhex geliyo waxaan sameynayaa saa soo geliyo control O open aan leeyahay open ama control O image-kii aan soo gelin lahaa ayaan soo dooranayaa tusaale kan oo kale image-kan soo qabanayaa left click left click aan qabanaya waan jiidaya waan wada halkan waan kusii dhex deynayaa marka calaamad plus markay soo baxdo okay waa ka kusii dhex deeyay saa markay tahay marka sidaa markay tahay waxaan sameynayaa iminka jagaan saaraya sawirka dushiisan imaanaya layerka oo sawirka dushiis right click aan leeyahay waxaan leeyahay create grading mask kadib wuxuu galayaa gudaha ayuu galayaa marka sawirkii waa ka okay marka waxaan rabaa kan inaan border u sameeyo waan dooranayaa right click kadib blending options stroke aan ku darayaa marka stroke aan dooranayaa double click aan siinayaa sidoo kale colorka stroke waxaan ka dhigayaa tusaale kan oo kale okay aan leeyahay kadibna size-ka ayaan ku darayaa marka waa ka soo ma jeedid marka kadib waxaan leeyahay okay marka waxaan ku soo darayaa background-kan dooranaya waxaan ku soo darayaa logo oo kale logan kusoo daraya halkaan la imanaya marka file open tusaale logada channelkiga oo kale youtube-ka marka logadan soo gelinaya waxaan leeyahay okay waan soo jiidaya marka intaan ku dhex daynaya halkaan aan dhigaya marka waxaan rabaa inaan kusoo dhex daro sidoo kale background rabaa inaan kusoo dhex daro background kale oo gooni ah aan rabaa inaan halkan soo geliyo waxaan leeyahay file waxaan leeyahay open waxaan soo gelinayaa backgroundka tusaale waxaan furayaa dida okay background halkaan aan furayaa marka tusaale kaba soo qaad kan oo kale drag and drop ku sameeyaa halkaan aan keenayaa waa ka waan dhex dhigay waa kana intaan kusoo dhex daynaya marka waxaan sameynayaa sida markay tahay
backgroundka xogaa waxaan rabaa inaan weyneeyo marka yani sorry waxaan ka wadaa backgroundka inaan khafiif aan ka dhigo hadda xogaa si fiican u muuqda maano si aan uga dhigo khafiif waxaan sameynaa marka hore number 1 ama number 2 aan taabtay ama number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 kulama nambaradaas aan sii doorto waxa waa increase inuu sii sameynaya laakiin numberka hoose hadii ko aan kasoo bilaabo transparency-ga wuxuu sii noqonayaa khafiif 2 hadii aan dhaho wuxuu noqonayaa mid yani wuxuu noqonayaa wuu sii zaidaya yes okay hadda waxaan ka dhigay transparency sida markay taa marka waxaan rabaa inaan kusoo dhex daro qoraal aan kusoo daraya marka si aan u soo daro waxaan sameynayaa background aan dooranayaa intaan aan kusoo daray marka hore waan kusoo daraya okay qoraal aan kusoo daraya background kan dooranaya halkaan aan imanaya t ayaan dooranaya t okay colorka marka cadaan aan ka dhigaya okay colorka textiga okay halkaan aan imanaya marka tusaale practical oo kale practical ayaan qoray okay hadda marka qoraalka ma soo muuqdo gadaal uu jira v aan taabanaya si uu uga dul maro si uu soo fuulo halkan backgroundka dushiisa waxaan sameynaynaa practicalkan soo qaadaya imageka layerka imageka backgroundka dushiisa soo saaray waa kaas oo ma jirto hadda uu soo muuqdo marka kule waxay la tahay in la fahmayo xogaa okay sa markay marka waxaan rabaa inaan waxaan kusoo daraya marka imika waxaan ku yidhahdaa triangle halkaan aan imanaya rectangle aan kusoo daraya sorry rectangle aan dooranaya weliba waxaan dooranayaa this one round rectangle okay waa cadaan kalarka waan ka bedelaya waxaan dooranaya kalarka tusaale loogada kalarkeeda aan ku daaranaya kadib okay aan leeyahay halkaana marka aan ku jiidaya marka v aan taabanaya kadib ab arrow aan kusii soconaya hadda waa ka marka kaas kore marka waa cinwaankii waa tusaale okay waa tusaale waa cinwaankii okay sidoo kale marka waxaan sameynayaa waxaan dooranaya waxaan kusoo daraya rectangle kale waxaan dooranaya background kadib halkaan aan imanaya waxaan dooranaya rectangle-kaas halkaan aan kusii dhexdaynaya marka imika halkaan aan kusii dhexdaynaya xogaa okay v aan taabanaya waxaan rabaa marka shape-kan waan soo jiidaya background-ka dushiisaan geynaya marka si uu kor usoo fulo waa ka hadda soo ma jeedid sida markay tahay marka waxaan rabaa qoraal inaan dul saaro qoraalkaas aan soo qaadanaya control j aan leeyahay okay waa kana waa soo jiiday practical marka waxaan rabaa qoraalka inaan wax ku daro t aan dooranaya click aan leeyahay practical waan badinaya tusaale practical title 2 oo kale title 2 okay marka kaasaan dooranaya v ayaan dooranaya marka qoraalkii waan jiidaya halkaan aan geynaya marka waxaan rabaa marka xogaa kan inaan xogaa qurux u yeelo waxaan dooranaya backgroundka waxaan kusoo daraya sidoo kale waxaan dooranaya backgroundka waxaan kusoo darayaa rectangle kale sorry ellipse aan kusoo daraya waan dooranaya halkaan aan kusii jiidaya marka waxay la tahay in la ila socdo xogaa marka kan waan soo qaadaya shape-ka waxaan geynaya backgroundka dushiisa okay waa ka soo ma jeedid marka okay sidoo kale haddii aan rabo inaan sii badiyo waxaan dooranaya sidoo kale rectangle-kan dooranaya control j aan leeyahay control j means copy waaye okay waa kana okay halkaan aan geeyey xogaa waan yaraynaya marka size-ka waan yaraynaya xogaa okay halkaan markaan geeyo sidoo kale waxaan soo koobiyeysanaya this one wareega ellipse tool control j aan leeyahay isagana waan soo qaadaya marka waan soo koobi gareeyay soo jiidaya halkaan aan dhigaya marka sidoo kale waxaan soo koobi gareynaya qoraalkan waan dooranaya control j aan leeyahay waa ka aan soo jiidaya marka waan koobi gareeyay soo ma jeedid marka okay mid kale aan rabaa inaan soo qaato control j rectangle-kan dooranaya control j aan leeyahay waa soo jiidaya marka waxaan isticmaalayaa down arrow okay waa kana waan yareynaya xogaa halkaan aan keenaya halkaan okay design qurux badan soo bax marka soo ma jeedid waxaan dooranaya marka this one haddana sidoo kale control j soo qaada halkaan aan dhigaya title-kan qoraalkaas rabaa inaan soo copy gareysto control j aan leeyahay waan soo qaatay halkaan aan dhigay waa ka maasha Allah waxaan soo saarnay qoraal qurux badan boor qurux badan waa tusaale un adiga mid ka qurux badan aad samayn kartaa okay sida markay tahay marka waxaan rabaa inaan meelahan yani geesahan oo kale iyo geesahan inaan kusoo daro mid kale waxaan ku yidhahdaa inaan kusoo daro rectangle background-kan dooranaya halkaan aan imanaya waxaan doortay rectangle aan dooranaya halkaan aan kusii jiidaya marka kusii jiidaya halkaan v aan dooranaya okay marka isla asagaan koobi gareynaya marka isla asaga ayaan koobiyeysanaya ama haddii aad rabto waxaad samayn kartaa adoon koobiyeyn mid kale aad dooran kartaa rectangle
kadib waxaad dooranaysaa backgroundka halkaanaad imanaysaa kusii jiidaysaa sidoo kale ilaa inta sidoo kale haddana waxaad dooranaysaa backgroundka qaybta kore ayadana sidoo kale waa kusii jiidaysaa rectangle-ka okay waa ka maasha allah okay sidoo kale waxaan kaloo samayn karnaa maxaan ku yidhahdaa sidoo kale waxaan kusoo daraynaa marka tusaale calaamadihii icons aan kusoo daraynaa icons ugu soo darna marka waxaan samaynaa custom shape aan tegaynaa halkaanaan tegaynaa marka shapeka marka waxaan dooranaynaa hoosan aadaynaa waxaan ka dooranaynaa shapekan kan oo kale okay halkaanaan marka backgroundkan noo dooran soo ma jeedid marka halkaan ayaan waxaan leenahay okay mid kale aan ku daraynaa halkan okay marka waxaad samayn kartaa hal xaba intaad samaysatid ayaad waxaad samayn kartaa kan ayaad waxaad ka samayn kartaa mid kale oo copy ah marka kan hadda wuxuu jiraa hoos backgroundkaas waxaan rabaa inaan aan ka dulmarino waan qaadaya halka marka halkaasaan geynaya control j ayaa marka haddii aan rabo inaan badiyo control j soo jiidaya iminka halkaanaan keenay control j halkaanaan keenay waan jiidaya weli control j haddana control j waan jiidaya okay marka waxaan rabaa halkaan inaan qoraal aan ku daro halkaan okay tusaale control j kanaan copy garaysanaya halkaanaan keenay halkaan markaan keeno marka kalarkan ka bedelaya kalarka qoraalka waan bedelaya control a ayaan leeyahay okay kaasaan dooranaya kalarkaasaan ka dhigaya marka si u muuqdo okay so uma jeedid marka xogaa okay waxaan rabaa marka kan okay so uma jeedid marka haddana asagaan copy garaysanaya control j marka kan waa tusaale adiga hadhowdii projectigaada waxa waaye waa waxaad ka dhigan lahayd aday ku taallaa marka waxa waaye anaga hadda tusaale un baan samaynaynaa control j sidoo kale kan marka waa yareynaya halkan kan halkan maadaama aan keenay control t okay waxaan leeyahay halkan waan tirtiraya title oo kale title okay okay marka waxay la tahay in la fahmay sida loo sameeyo board waxaan noo haray tusaale inaan kusoo darno oo kale inkastoo waqtiga uu aad nagu badan yahay dee 12 daqiiqan sii maraynaa haddii aan rabo inaan kusoo daro bahalkii icon kale halkaanaan dooranaya icon halkaanaan tegaya marka icon saacad oo kale haddii aan rabo saacadaan dooranaya kalarka waan bedelaya saacadda haddii aan rabo inaan ka dhigo cadaan oo kale halkaanaan dhigaya marka haddii aan rabo xilliga timeka haddii aan rabo timeka waa kaas uma jeed marka waxaan rabaa inaan kaas inuu kor soo maro soo jiidaya marka shapekan ka dulmarsiinaya marka shapeka korkiisaan geynaya marka shapekaas korkiisaan geeyay waa kana uu soo muuqdo saacaddii waa kana okay waxaan rabaa kaba soo qaad sidoo kale waxaan rabaa inaan aan kusoo daro icon telephone inaan kusoo daro halkaanaan tegaya telephone markii custom shape toolan tegaya halkaanaan tegaya waxaan dooranaya marka waxaan ku yidhahdaa telefoonkii aan halkan ka raadinaya okay waa kana waan doortay halkaanaan kusii jiidaya marka telephone numberkii oo kale halkaan oo kale waa ka iconka marka waxaan rabaa iconkan inuu soo muuqdo si uu soo muuqdo marka shapeka iconka waa kana waan soo jiidaya waxaan keenaya waxaan ka dulmarinaya shapekan korkiisa waa ka waxay la tahay in la fahmay halkaan waxaad gelinaysaa marka telephone numberkii halkaan timekii xilligii wixii barnaamijka la qabanayo okay casharkeeni maanta halkaan kusoo gabagabina insha Allah waxay la tahay waqtiga inaan sii dheereeyay dhib male waxaan filayaa in la fahmay isma dhaafin insha Allah inoo casharkeeni xiga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.